joognaa kacbada ayaa joognaa jabrada muslimiinta dhan kusoo jihaysanayeen subxaan allah sidaan habeen iyo maalin waqti kasto sidaan ayaa loo buuxaa alxamdulilah jaanis ayaan waxayna hal mar inaan maaragta xagga rasmiska aan dhunkano laakiin sidaan waaye xaalkeena jabrada maasha allah waxaa iskugu imaatay muslim oo dhan adduunka meel walba joogo yacni wax kala soocan ma lahan rag iyo dumar kulli waa la wada dawaafayaa ilaahay subxaan allah meeshaan markaa imaatid iimaankaada otomaatig ayuu isku bedelayaa hadda maanta jawiga aad u fiican yahay roob ayaa jiro maasha allah cirkaal marku aadi roobka maaragtay siduu maaragtay uu jiro maasha allah gacmada waa taas sida loo dawaafaayo xaajil aswadka mar walba mashquul waaye alxamdulilah ilaahay waxaan ka barynaa inta muslimiin inuu u kaso maanta taariikhdu waa 15 February 2017 waxaa ilaahay ka baryaynaa inuu maaragtay waddankeena noo islaaxiyo madaxweynaha la doortay oo ummadda dhan isku raacsan tahana inuu ilaahay maaragtay u gargaaro xilkiisa inuu maaragtay qabsado si wanaagsan u qabsado waxaa u duceynaa khaasatan maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ilaahay xilkiisa ka garab galo ummadda soomaaliyeed markay toosto hogaankana markaas u toosaya soomaalida waxay dhahaan far kaligeed fool ma dhaqmo madaxweynaha waa shaqsi keligiis uma qaban karo marka soomaaliya waa inaa maaragtay isku imaataan dowladdiina ha dhisataan waddankiina ha dhisataan waddanka markuu nabad yahay nabadda barwaaqada ay leedahay iyo nicmada ay leedahay ilaahay subxaana wa tacaala magaaladan aan joogno makkatal mukarrama wuxuu ku galadeystay waxaa waaye ammaan iyo irsaaqad labadaba u ballan qaaday ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay awalam numakkin lahum xaraman aaminan yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shayin rizqan min ladunaa subxaana allah ilaahay subxaana wa tacaala ahlu makka wuxuu makiniyey xaram aamin ah oo miro iyo wax kasta arabsi waa ka helaysaa subxaana allah waxaa kaloo cajiib ah waxaan tagnay oo kusoo wareegnay oo loo soo tutusay carafo iyo maaragtay mino iyo musdalifa iyo qaaru xira iyo qaaru thoor meelahaas oo dhan aan tagnay iyo jabaluraxma iyo laakiin meelahaas oo dhan markaad tagtid marka dhan waa wada buuranay meel doog ah oo coos ka baxay ama geed ka baxay ma arkaysid saasta ay tahayna wax ka maqan ma laha wax kasta oo rabtid maanta dukaanka dadka waa keenaysaa subxaan allah qur-aanka mucjisadiisay kamid tahay ilaahay subxaana wa tacaala u ballan qaaday xaraman aaminan yujbaa ilayhi thamaraatu kulli shayin rizqan min ladunaa marka cajiib waaye waana ammaan meesha dukaamanka cajiib waaye waa iska furan yihiin wax xiraay male kawaada meesha dhigataa ugu imaanaysaa dharkaada meesha dhigtaa ugu imaanaysaa wax xadaayo male wax maaragtay qabsanaayo male waxaa is leedahay magaaladan saciidin ku go-aanta maxaa yeele qofku dhahaysa male sharcigaada waxaad aaway marka maasha allah waa ilaahay nicmadiisa alxamdulilah qof kastoo muslima waxaa ugu duceynaya inuu ilaahay u kasuulo meeshaan imaado maxaa yeele iimaankaada isbedel weyna ka dareemay ummaddan oo dhan iyo makhluuqaan oo ilaahay wada maryaayaan oo dhahayaan labayk allaahumma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda walnicmata laka walmulka laa shariika lak marka kulligood waxay ka midaysan yihiin ilaahay inay baryaan ilaahay inay qusaan inay maaragtay muslimiinta u duceeyaan inay naftooda ducaystaan marka alxamdulilah waxaa maaragtay aad iyo aad ula cajabtidaa ku arkaysaa meeshaan marka qof kasta oo muslim ah waxaan idinkaga rajaynaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala idin kaso wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu.